saa la socotaan waxaan jiro arrimihii doorashooyinka oo process dheer iyo wada hadallo dheer badan soo maray muddo dheerna aan soo wadnay wada hadalkana ka soo bilowday Samareeb 1 2 3 ugu dambeyntiina heshiis loo dhan yahay oo dadka dhan ay ku qanacsan yihiin lagu gaaray 17 September Muqdisho heshiiska markii uu dhamaaday dadka dhan ay ku wada qanacsanaayeen madaxda dawlad goboleedyada dhan iyo ay joogeen ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynahaba oo go'aankaas doorashada dadban ah uu ka soo baxay heshiiskii markuu dhamaaday wuxuu u gudbay golaha sharci dejinta labada aqal lagu ansixiyay ayadoo raali laga yahay yaa heshiis lagu yahay baa la ansixiyay waxaa loo gudbay fulintii waxaan ka qaadanay qayb muhiim leh iyo waajibaadkii nooga aadanaa oo ahaa fulinta heshiiskaas oo ahayd laba guddi oo mas'uuliyadeeda naga saarneed inaan soo gudbinay guddigii siid iyo kii fiid iyo kii xalinta khilaafaadka annaga oo raacayna habraaci rasmiga ahaa ee lagu heshiiyey ee ay ku heshiiyeen madaxda dawladda oo aan heshiiska ku wada qornay annaga oo raacayno yaan waxaan soo gudbinay xubnihii guddigii siid iyo fiid iyo labadii xubnood oo guddiga xalinta khilaafaadka ahayd waxayna ka qayb galeen waxaana u gudbinay shaqooyinkooda inay qabsadaan sidaasoo kale waxaan diyaar u nahay inaan dhammaystirno oon qabanno doorasho xor iyo xalaal ah oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ku qanacsan yihiin oo dadka reer Koonfur Galbeed ay ku qanacsan yihiin oo si loogu talagalay oo lagu heshiiyey oo heshiiskii loo dhamaa u dhacay aan u qabanno annaga oo fiirinayno boqolkii 30 haweenka in ayadana ay suurta gasho oo aan ku soo saarno boqolkii 30 haweenka sidaasoo kale waxaan codsanaynaa madaxda kale oo Soomaaliyeed ee heshiiskan qaybta ka ahayd inay ayagana ay heshiiskii iyo ballantii iyo wixii lagu heshiiyey sidii loogu heshiiyey ay u fuliyaan oo ay u dhaqan geliyaan si ay u dhacdo doorasho waqtigeeda ay ku dhacdo sidii horeyba loo codsaday wax badan aan horey u sheegnay muddo badanna laga hadlay runtii heshiiskan waxaa loo soo maray dadaal badan waqti badan tanaasul badan dadka Soomaaliyeed oo dhanna waa og yahay wuxuu soo maray iyo marxaladaha kala duwanaa uu soo maray iyo meesha la kala joogay qof iyo cod dawladda federaalka oo madaxweynaha ugu horeeyo baarlamaanku uu ku jiro qorshahooda wuxuu ahaa in qof iyo cod doorasho la qabto markii aan aragnay duruufaha jiro iyo waqtiga meeshuu marayo madaxda dawlad goboleedyada yaa waxay go'aansadeen in doorashada hadda la hayo annaga soo jeedinay kulliga annagana heshiisaan ku ahayn in doorashadii dadbaneyd oo lagu daray 3 qodob inaan qaadano heshiiskaas madaxda dawladda oo ugu horeeyay madaxweynahana tanaasul suubiyay waa nagu raacay dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo siyaasiyiinta iyo shacabkana kulligood waa nagu raaceen labadii gole baarlamaankana waa ansixiyeen waa qoran yahay heshiiska waa saxiixnay wax hadda loo noqonayo ma aha qof kastoo Soomaaliya haysto baarlamaanka haysto siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo dhan haysto kii la taageeray buu ahaa kii lagu farxay buu ahaa waxaan rabnaa sida uu u qornaa in loo dhaqan geliyo oo loo fuliyo aanan gadaal loo noqonin doorashadana aysan dib u dhicin waana caddahay waxa ku qornaa waxyaalo cabasho haday jiraan waa laga wada hadli karaa cabasho la'aan ma dhici karto kana saan aha waa la sixi karaa laakiin waxay u baahan tahay in la ilaaliyo heshiiskii in la ilaaliyo nidaamkii dawliga ahaa in la ilaaliyo dawladnimadii heshiiskaas oo ahaa fulintiisa iyo qabashadiisa ay mas'uul ka ahayd dawladda federaalka iyo xubnaha dawladda federaalka xubnaha ka dawlad goboleedyada inay fuliyaan heshiiskeeda ahaa waxyaalaha cabashada oo hadda laga hadlayo oo heshiiska ku jiray arrimaha Somaliland markii la yiraahdo oo laga hadlayo annaga waa joognay heshiiska waana qoran yahay waa la hayaa madaxda dhanna waa joogeen hal maalinna meel looga hadlay ma jirin Cabdi Xaashi baa looga dambeynaya guddiga Somaliland way caddahay heshiiskay ku qoran tahay waxaa ku qoran ra'iisul wasaaraha soo magacaabayo waxaa fadhiyay shirka
oo qayb ka ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed oo Somaliland ka soo jeedo. waxaa lagala tashanayay waxaa hay-adda fulinta yaa qoraysa oo shaqadaas qabanaysa oo ahaa heshiiska. Cabdi Xaashi nin oday ahoo Soomaaliyeed waaye, gudoomiyihii waxaa weeye aqalkii sare, siyaasiyiinta Soomaaliyeed uu ka mid yahay. laakiin ninkii wax la rabay in asaga haddii loo dhiibo ay ahayd markii meesha la joogay bay ahayd in heshiiska lagu daro la qoro la yiraahdo Cabdi Xaashi ha loo dhiibo. nasiib wanaag laguma qorin. hadda in la soo xasuusto marka oo caqabad laga dhigo aniga uma arki in horey loo socdaan qabaa. waxyaalaha lagu heshiiyey oo dhan wax cad bay ahaayeen. waxa hadda laga hadlayo oo dhan runtii markii gadaal loo noqdo kuma jirin. waa jirtay arinta ka jirto Gado iyo cabashada Jubbaland. waxaa looga heshiiyey waxay ahayd in dib u heshiisiin la sameeyo, dadka reer Jubbaland dib u heshiisiin loo suubiyo, dowladdana ay qayb ka qaadato, Jubbalandna ay qayb ka qaadato, dib u heshiisiintaas ay socoto. laakiinse aanan condition laga dhigin oo shuruud loogu xirin doorashada. arrimaha doorashadana ay socdaan, dib u heshiisiintana ay socoto. waxaan codsanaynaa marka inaanan dib loo noqonin, horey loo socdo, aanan inta fiiri aysan noqonin. waxaan diyaar u nahay oon habeenii maalin u taagannahay wax allaale iyo wixii cabasho qabo oo Soomaali ah ama siyaasi ha noqdo ama dowlad goboleedyada saaxiibadaanada ka midka ha noqdo. waxaan diyaar u nahay inaan xalkeeda ka qayb qaadano. laakiin waxaa kaloo diyaar u nahay oon rabnaa in la fuliyo heshiiskii sidii uu u qornaa loo fuliyo. aanan dib gocosho aysan u imaanin markii dib loo noqdo, aanan dib wax loo goconin. si ayadoo loo danaynhayo ummadda Soomaaliyeed, ayadoo la fiirinhayo maxay ahayd sida ay wax ku socdaan iyo horumar ka jiro, ayadoo la ixtiraamayo heshiisyadii la soo galay, ayadoo la ixtiraamayo dastuurka iyo nidaamka dawliga ah in la tixgeliyaan codsanaynaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أمها سنتين رئيس الوزراء يا مدحضة كلا أو ندقي سنيسي هذا أمها سنتين.